بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وهذا البلد الأمين. ومحمد عبدي كاهن oo ah aabba haysta 6 caruura isla markaana dhawaan ka soo laabtay dalka Denmark oo uu ku noolaa 8 sano u dambeysay isaga iyo qoyskiisaba waxa uu go'aansaday inuu isaga soo tago dalkaasi Denmark isla markaana uu soo guuro dalkiisa hooyo isagoo celiyay dhammaan sharciyadii uu ka haystay dalkaasi isaga iyo qoyskiisaba Maxamed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi uga soo tagay ay tahay kadib markii uu xorriyad diimeed uu ka waayay halkaasi isla markaana ubadkiisa oo ah kuwa aad u daayar uga cabsaday in la dhaqan dooriyo sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Denmark ay bilowday faragelin la xidhiidha arrimaha qoysaska muslimka ah ee dalkaasi ku nool Maxamed iyo qoyskiisu waxa ay hadda ku sugan yihiin magaalada Hargeysa iyagoo go'aan ku gaadhay in aanay dib ugu laaban qaaradda Yurub oo ay ka yimaadeen waxay ku raaxaysanayaan oo waqti qurux badan ku wada qaadanayaan Maxamed iyo qoyskiisu gudaha dalkooda hooyo isagoo sheegay Maxamed in isaga iyo ubadkiisuba ay ku faraxsan yihiin nolosha cusub ee ay halkan ka bilaabeen haddaba ku soo dhowaada daawadayaal sheekada Maxamed iyo qoyskiisa oo aanu ka waraysanay qaabkii uu ku tegay qaaradda Yurub sababaha dheeraadka ee ku kalifay in uu sharciga dalka Denmark iska celiyo iyo nolosha cusub ee uu ka bilaabay dalkiisa hooyo waxa aan ka yimi wadanka Denmark aniga iyo qoyskayguba Denmark waxa aan tegay 2014 inta ka dambeysay ilaa haatan Denmark baanu deganay kadib wadanka Denmark oo muddooyinkii u dambeeyay siyaasaddiisu aad u soo xumaanaysay ayaa waxa aanu aniga reerkuba go'aan ku qaadanay in aanu Hargeysa ku soo noqono isla markaana aanu sharciga u celino sababtuna waxa weeye sidaad weydiisay horta qofka bini'aadamka labada shay ugu muhiimsan waa diin iyo carruurta marka labadii shayba markaan u baqanay waxaan go'aan ku qaadanay in halkii markii hore aanu ka tagnay inaan ku soo noqono waddan waxaan tagay 2014 bilowgiisii marka waxaan ka tagay qadar Norway baan sii maray marka Norway ma cajabin Denmark baan tagay halkaas iska dhiibay sharci baan qaatay reerkana 2017 ayaan keenay markaan reerka keenay baa cadaadis xagga dawladda Denmark ayaa soo food saaray kadib markaas isla markiiba waxa aan dareemay in arrintu sidii markii hore ay ahayd inaan ahayn oo dawladdaas aan u nimi in ay aad focus ugu hayso carruurta oo hadday diintooda tahay hadday dhaqankooda tahay oo maaragtay aad loogu sheekaynayo marka ay 2 sano joogeenba waxa ay ugu dhashay dareen ah wadinkiini ku nool marka iyagoo kaliya soo celin kariyay laakiin qofku kaliya meel kuma noolaan karo markaan in badan ka fikiray waxa aan qaatay inaan dhammaantiiba anaga wada soconna aan wadanka ku soo noqono markaas aanu kaga badbaadno dhibtii maaragtay carruurtii la daba socday iyo xaggaas carruurta waa lagu leeyahay oo kaliya milih oo lagu maamulayaa oo la eegayaa oo la daba soconaya marka haddii la arko macallimaad maaragtay xaggi diinta inaad barayso oo aad maaragtay ku dadaalisana waa si gaar ah lagu eegaya oo waxaad noqonaysaa markaa waxyaabihii ay ka ilaalinayaan carruurta marka aan dareemay in cadaadis badan ma soo food saarayo caqabaduna intaana ku qabsan inay ka hortagtaa markaa aan arkay in carruurta la daba socdo oo la leeyahay iskuulkii baa ku adkaaday oo macnaheedu yahay quraanka iyo diinta barashadeed ka joojiya iyagoo iskuulka laftiisa aad u dadaalaya ayaan anigii gabadha waxaan ku tashanay inaan wadankii ku soo noqono taas ayaa horta arrinta ugu muhiimsan ee aanu soo guuray ee aanu sharciga loo celinay in annaga iyo carruurtaba aanu badbaadino diinteeda iyo dhaqankeeda intaas horta ugu muhiimsan in carruurta online wax loogu dhigi jiray marka quraanka iyo higaada iyo axaadiista loo dhigaya marka inkayga weyn quraanka u dhameeyay marka maalintii aan u dhigay xafladda in quraanka dhameeyay macallimiintu ka xanaaqeen goormaad quraanka u dhigi jirtay wixii ka dambeeyay waxay bilaabeen in carruurta ku yiraahdaan biyo maxaa la idinku dhigaa in ay diimahooda iyo waxa soo dhan ay daba socdaan oo xataa yeedhaan ay yiraahdaan iskuulka barashadii iskuulka ayaa ku adag markaas markii guriga yimaadaan baan xisaabta iyo Danishka iyo waxa soo dhan waana iga casharadii waxaan arkaa markaa inay garanayaan haddana xaggan macallimiinta markaan wada hadlayno
waxay iga dhigayaan carruurtii muxuu ahaa in aan midba garanin marka kolba waxay uga odhanayaan casharada aad iskuul guriga ku siisaan ayaa malaha laga yaabaa in muxuu ahaa casharada ku bateen ee bal kuwa ka yara joojiya marka anna waxaan ku idhaahdaa un kuwan iyo kuwaas waa isku mid halkan casharada way u fudud yihiin iskuulka oo anaa guriga ka muxuu ahaa isha ka mariyo ka eega casharadaas ay habeenkii iyo casar ka dhigtaanna way u fudud ma fududo annaga macallimiina oo muxuu ahaa annaga laysankii oo haysano oo kadibna muxuu ahaa muddo isqabqabsigii markaas waxaan arkay dee muxuu ahaa in aan raalli laga ahayn inaanu carruurtii sidii annagu dee aanu rabnin aanu u korino xataa carruurtii gaar baa loola baxaya gaar baa loo waraysanaya ilmihii waxaa ku imanaya maskaxda turuush lagu furay oo arrimihii diinta kaala hadlaya arrimihii kale xitaa mararka qaar dee qur-aanka way diidi jireen ma rabno oo caynka ma garanaysa xataa way ku hanjabayaan carruurta mararka qaar ilaa waxbay soo ogyiin waa lala soo ballama annagaa laga ka odhanayaan ha amar si toosa kuu siin maayaan oo dee waxay ogyiin aanu ashkatoonka roo sharcigii la naqaano iyo luqadiiba laakiin dee si indirecti ah adiga iyo carruurta la iskiin nacsiinaya marka ugu horreysa marka ay arkaan aabbaha iyo hooyadii carruurtu inay isnaceenna markaas jaanis fiican bay haystaan inay qaataan marka ta ugu horreysa ilmaha madaxa loo soo buuxinaya adiga ilmihi la iska kiin hor keenaya marka la iska kiin hor keeno bas markaa waa idin maamuli karaa marka annaga namay maamuli karin waayo qoys ahaan waan isku xidhnay marka keliya annagu bay cadaadiska na saarayeen laakiin maalinta marka carruurtii ayaa bilowday inay annaga nala murmaan ilmuhuna hadduu bilaabay inuu kula murmo oo xataa u maleeyo inuu kaa aqli badan yahay oo markuu kaa hoos baxayo hadduu kaa hoos baxaana dee waa khalaas marka adiga la joogayay ilmihii adiga kula joogi maayo adiga waalidka u aha laakiin adiga ayaa dulsaar ku ah carruurta waa sidaa ay ku nool yihiin dad badan oo qurba jooga gaar ahaan Scandinavian-ka iyo Yurub anigii gabadha tashanay marka waxaan ku orday wadankiina baahina ma hayso dee sharcigan maanta waxa ka muhiimsan diinta iyo ubadka wadama barika maalimka dhibato waa lagu weydiinaya ilaahay wuxuu ka oranayaa dee muxuu ahaa irsaaqada kuma yaayeen waxba ku sii diintaadiina wad haysatay wadankaagina nabad buu ahaa carruurna waan kuugu daray caafimaadna wad haysatay wax allaale wax nimo oo maanta inaga maqan ma jirto marka ba wadan gaalo waxaad ka doontay mas'uuliyadii ugu weyneed ubadka aan ku siiyay ee wadan gaalo ugu gacan gelisay dee markaa ku naartigaya ma garato waliba ilmaha markuu diintiisa dayacay oo ka baxo si kasta uu tukato waxa laga yaabaa aakhirada inaad cadaab kulul ku mutaysato marka gabadhiina way la qaadatay kadib dawladdii baan loo xidhiidhnay waan noqonaynaa baan ku nidhi adigu markaa cadaadis markaan midaan tegaynaa cadaadis bayna yara saareen laakiin dee maadaama aanan ahayn dad dheelish oo sharciga deganaanshaha aanu haysano dee in badan wayna warwareejiyay laakiin aakhirkii markaanu baasaboorradayda la soo baxnay tigidhadayda diyaarsanay dee kuma hor istaagi karaan dee maxaan idinku taageeraa un bay yidhaahdeen dee maca salaama aynu kala faataxaysan un baan ku nidhi wallaahi hargeysa dee aad bay u dhisatay nabadgelyo buuxdaa ka jira dadku wada tukanayaan oo wada muslimiin dee wax caqabada oo maanta aan ku idhaahdo dhib baa jirta ma jirto waa ummadda islaamka ah ee wada shaqaysanaysa wadanka nabadgelyada luqadda la isfahmayo diinta la wada yahay ummadnimaduna dee ay ka dhaxaysa la midaysan yihiin marka boqolkiiba maalintii aanu hargeysanayno weliba gabadho waxay tiri marka laba cisho joogay bay tiri wiilkii badnaa iga hadhay kadib waxaan kuuma ku celiyay ma noqonaa وسفارة بكون نقطنا من العنقوان كمان كان نقطنا ما يبتري والله وان كهرب أبي قلت حتى هذا نقطة مركا أكبر نقفر حسنين عن هرقي سمحوها أنت جناني إن شاء الله تعالى عرورتا أنكو رأي عرورتا يمكا إسكولو يوم مدارس بان كدرينا مركا مركا دي إسكولو دي مدارس كودي بهالكي كسي وضيا أنا مركا تبعتو لفتجي waxay qorshaysan inaan waxbarashada sii wado oo aan jaamacad iyo wax diyaariyo xagga shaqada markay timaadana inaan ganacsiyo wax galo ayaa imkii qorshaysan marka adigu alxamdulillah nolosha qorshe fiican ayaa noo yaala oo dee dhowr jeer waxaan isku qabsanay carruurta oo waxay yidhaahdeen muxuu ahaa carruurta diinta bartaan iyo muxuu ahaa qur-aankan aad baraysaan xataa mar muxuu ahaa gabadh kamuunka magaaladaanu deganayn muxuu ahaa maayarka xigeenii waxay nagu tiri diimahan waa diimo gaboobay ee laga baxay aad isku mashquulinaysaan bulshadan lacagta haysata ee hore markatay wax walba ay siinay dhinaciinu ka raaca kadibna markaas halkaa waxa markaa iga soo baxday in xataa dee maamulka ugu sarreeya uu la socdo muxuu ahaa arrimaha iyaga markaan sidaa hor istaagay dee waxay igu tiri muxuu ahaa arrimihiina si fiican baan la socdaa marka iyagu markaan ku nigoon tegaynaa aad bay ula yaabeen
maxaa idinku dhacay ma gurigaa idinku yar ma shaqadaan idinku fillayn xitaa gabadhayda markaa aan shaqaynayn waxay ku dhahay shaqana adigana ma intan maxamed soo shaqeeyaa idinku yaraatay makiradii iska bixin kari weydeen maxaa idinku taageeraa kadib gaarbay ugu yaada markaa ku raacaan ku oray si aan u kala hadlin markaa lama ogola yiraahdeen kaligeed waa inaan waraysanaa kadib markaa waxay tiri wadankayagii ayaan u baahliyo markaa geed fiican bay qabsato sideedayna hadlina waxay tiri aniga meeshan kaligay baan ku noqdo ehelkaygii ayaan aad ugu xiisa markaa iyada xagga carruurtaba kamay hadlin markaa waxay ku dhahdeen waxaad adigu u noqonaysaa markaa waa inaad aabbaha iyo reerkiina u tagto aniga kuwaas ay muhiim hasay tiri iyada markaa aad uguma mashquulin intaasoo keliyaaba maxamed waxaanu ka sheekaynayo iyo maxamed carruurtan isagaa dhalay isaga ka mas-uula ayay ku tiri kadib markaa waxay ku yidhahdeen adigu mas-uul baad ka tahay weliba mas-uuliyadda ugu badan aday ku saaranta markay arkeen maaragtay in annagaana isku sii ogeynin mas-uuliyadda carruurtoo dhan ay aniga dusha ii saarto oo hadday tira waan wada leenahay dhexdeeda wax ka soo saaray intay iyada waraystaan annagana waraystaan bay odhan karaan saasay tiri saasaa tiri waxba isku haysaan oo inta badan waxay jecel yihiin reeraha dhex galaan markaas keligayiinba markaa iyagana waxay tiri ninkaasaa carruurtiisa mas-uulka ah markaa waxay noqoto inay aniga ila macaamilaan anna waxaan ku idhay waddankaas ummadda waa waddankayagii markii horeba dee annagunbaa idin nimi dee iminkan annagunbaa tegaynaa waxaanu u tegaynaana waxa weeyaan muxuu ahaa dee waddankii aanan xorriyad dareemin markaas waxay yidhahdeen waddankan dhan ee xorta ah waa xor laakiin haddana muxuu ahaa arrimaha dadka muslimiintaa si gaara diintooda la faragelinayaa carruurtooda la faragelinayaa dhan walba waa laga faragelinayaa markaa si caddaan lagu sheegay waxaa ku yidhi wax maxaa aynu kala qarsanaynaa sharcigiinniina waan bartay luqadiinniina waan bartay dee siyaasiyiintu waxay ku soo baxaanna waan ogi baarlamanku waxay ansixiyaan waan ogi dee markaa majoritiga waddanku maadaama aanay rabin dad muslimiina oo weliba si toosa sharciyada loo samaynayo leeyahay carruurta yaan waxaa la barin dee markaa waddankayga waan iskaga noqonaynaa dee markaa sharci ay lagu hor istaagaana ma jiraba ya soomaalidu badankooda ay nagu taageersanaayeen oo Soomaali fara badan maaragtay suuqyada Soomaalida Copenhagen markaanu sheekaysanno badankooda waxay oranayeen wallahi waa go'aan fiican in yar markaa ayuba diidaneed intaa yarina waxay ku weydiinaysaa wadankii wax makaaga horeeya wax kale ma waa isku Soomaalida wadamada galbeedka degan oo dhan isku waafaqsan wadankii lagu noqdo laakiin walaba waa in aaminsan in rizqa Ilaahay bixiyo iyo in dabakayur qabta marka tirawa noqonaya kooranayo wax makaaga horeeya markii hore Ilaahay baa afka ku jeexay moogti afku siiyay rizqa ku ballan qaaday kaliyeedii muxuu ahaa ma aayadda quraan maxay ahayd ma khalaqna al-insana wal jinna illa liya'budun samaan inaad Ilaahay aabudo mooyaan wax kale lagu abuurin rizqaaga aduu baxba lagu soo bixi annaga ku soo irsaaqaynay marka inta marka diidanay inaan noqono kaliya waxay ahayd inta warwar ka qabta halkii wax ka heli doona ya marka laakiin Soomaalida badankooda aad bay noogu taageereen inaanu noqono dhibaatooyinka ugu badan ee Soomaalida haysta waxa weeyaan horta dadku iyagu ay markay galaan way ku aadayto luqadda inay bartaan luqadda markay baran waayaan waxa timaada in sharciga laftiisa marka la arko qofkii aan luqadda garaneyn luqadda daamad garaneyn macnaheedu waxa sharciga waddanka ma taqaan kadib sharciga been marka laga sheegay qofkan ku maamulaya maaragtay ee arrintu doonayay inuu ka fushido sharciga dhigay kooranaya imka deemaago kale boqolaal jeer annagoo wada hadal noo dhaxay haday shaqatay haday guritay haday carruurtay qof wali wuxuu doonayaa dawladda u shaqeeyo inuu ku marsado wuxuu isagu jecel yahay markaa iska qabanaya oranaya kaas sharci maaha waa sharci ba xataa lagu oranaya markaas waad soo saaraysa sharciga laftiisii ayaad Google ka doonaysaa ama website-ka baarlamaanka sharcigu saas u dhigaya sidaa maaha markay arkaan inaad garan sharciga dib bay kaaga istaagaya laakiin Soomaalida maxaa lagu sameeyaa waxba loola imanaya waxa lagu oranayaa waa saas sameeyay waana sharci qofkii marka Soomaaliga ma yaqaan luqadii sharcigiina ma yaqaan qasab waxa ku noqonaysaa inuu qaato waxa arkaysaa dumar Soomaaliyeed oo ka baqanaya maxaa kamunada markaad ku tiraahdo waxa xaq lagu malaha waxa koona samaxan sameeyaan iyagiiba sharciga gacanta ku haya xagga qoysaskana wallahi aad bay u dhaxgalaa oo imka Yurub oo kale iyo Mareykan waxba kama sheegi karo laakiin wadamada Yurub aan arkay badankooda waxa burburiyaa dawladda ay ku nool ay la noolyihiin gabadha seminar baa loo dirayaa maskaxda laga soo bedelayaa ninkana cadaadis baa la saaraya ninkii la cadaadiyay iyo gabadhii muxuu ahaa maskax cusub la soo saaray ayaa markaa soo imanaya way iskhilaafayaan ujeedada kaliya laga leeyahay waa kala tagaan markay waliba kala tagaan
waxa haddana dhexdooda la soo dhex dhigayaa arrin dhaqaale dumarkii baa loo soo sheekeynayaa la odhanaya arrintan adaa iskale waxaan adaa iskale gabadhii markaa waxa ay noqonaysaa gabadha caqliga badani ma samayso dumarka caqliga badan laakiin dumar baa jira dhaqaalaha yar inta eegtaan ragga eriya ama beenha ka sheegaan oo xataa laga mamnuuca ragga inay carruurtooda arkaan dumar baad arkaysaa imika carruurta keligood la silcay gebigeedaba maaha dumar waxaa jira aad u fiican oo raggu xunyiin laakiin dumar baa jira rag wanaagsan eriyey oo u eriyey lacag darteed oo ku keliyeysatay oo arkaysaa weliba la dhibayo iyadiina waayo waxay ogyihiin nimankani ninkiina inay ku direen bay ogyihiin oo ay keligay tahay waana siday rabeen dumar badan aad u wanaagsan oo rag xun helayna way jiraan laakiin ta ugu badan rabaa waxa weeyaan gabadhani carruurta ku kaliyeysato si ay u maamushaan hooyo single mother si fiican bay u maamuli karaa weliba marka aanay luqadda waddanka garanayn wax kasta way marsanayaan aakhirkana doonaa carruurta way ka qaadayaan wallaahi markaan dhalinyarada waraysto horta meesha iimaan darroon baan ku tilmaami karaa maanta Hargeysa dhulka Soomaalida meelo badan waan arkay Hargeysa waan arkay Puntland waan arkay Jigjiga waan arkay Djibouti waan arkay xamar baan arag marka maanta inta nabadgelyo darrada ay koonfur ka jirta mooyaan tikaniye maanta dhalinyarada looga baahan yahay waa diyaal kaliya marka yurub tagaan lacag dhulka iska taatay la heli maayo qofkii luqad baa la oranayaa baro haddana shaqo baa la oranayaa lacag kastoo soo shaqeeyo kirada markuu iska bixiyo oo cuntidiisa iska bixiyo waxa kaliya soo haray dhowrka boqol oo reerka u soo diraya inta in la mid ah Hargeysa uu ka heli karaa laakiin maxaa maqan iimaankiisa ka maqan qofka oo isleey waxana hayso wax ka fiican ayaa jira halka markuu tagana wixii uu u maleeyayo dhan ma noqonayso qofkii waxa ku dhacaya markaa maxaa stress iyo dismoral iyo dhalinyaro fara badan oo waxa jira challenge ku jira qaar baa jira waashay qaar baa jira sarxaamin noqday in yar waxa jira percentage aad u yar baa hagaagta oo iska shaqaysata inta shaqaystaana warwariyo wala wadankii maxaa naga keenay qofkana Yurub haduu ka tago way adagtay go'aan inuu qaato soo noqdo aad bay ugu adagtay marka dadka Soomaaliyeed waxa kula talin la guud ahaan iyaga dhulkooda jooga inay aad u dadaalaan inay shaqaysan karaan oo muxuu ahaa ay wax sameyn karaan waana aaminsanahay in wadanka dhaqaale laga sameyn karo oo dhalinyaro fara badan waxa jira tamartooda oo dhan isugu geeyeen wax sameeyaan oo maanta wax noqday kuwaasna lagu daydo sida loo halkii lagu dayan lahaa in yar oo dhoofay oo soo degay oo gaari yar soo kireystay hal lagu daydo in kan muxuu intuu jaamacad ka baxay wax bartay ee isagoo wax samaystay ee isagoo ma garanaysa meel sare gaari waliba kaasa ka dhow kuwa dawladana waxa kula talin lahaa in wadankooda ku soo noqdaan wax ka qabsadaan waa waddanka aaminaan